nin maskiin oo gaari xamuul darawalka oo ilmo yeelo soo qaraab tagay ayaa la sheegay in $2 loo dilay waxaana dilay askari booliskii amnigiisa sugi lahay kamida ehelkiisuna waxay sheegeen ilaa hadda gacan ku dhigliin aan cadaalad la horkeenin meedkiina firinjeero ku jira ilaa hadda maalin kastana dad amina daradaas loo dilaa oo waa wax joogta noqday ciidankana lagu eedeynaya halkii amniga ka sugi lahaayeen inay qaarkood shacabka dilaan dawladdu askarta noocaas oo kale waa ku hortagi lahayd ma magacyadooda u sheegtiin taliyaha sheegin weydii war taliyaha sheegin uu yiri adinku ma sheegtaan war dadkaanu cadow dilo waa leeyihiin oo dhiigooda baneestay ciidanku hadaysan ka celinayn ma ugu sini waayeen war miyaalnaan maqal dambiiluhu intuu daaqayo ciidu dacweynaynin doodaha la faafinaya waa isaga dal war booliskii gobolka banaadir wax ku diro soo inuu farxan qaroole soo qabta ma ahayn war farxan qaroole baarlamaan ma hor istaagina masaadiq jaan baad ku qaladay aryaadaha way iska doodaysiin dambiiluhu haddii oo wax dilo ee la dili waayo waxuu doono waa inuu dilaa saa la dili waayo warkii wax dila haddaan la dilin dulmi hadhi maayo war adinka maxaa idin waalay haddii mid dhintay soo inkii kala lacamiya maaha ma dadka la dabar jaraya hayehe karfanya duugla miyaad naqatay adigina war ma bacmadowba u guntan warooyaashii gowracata miyaa kalamaan soo gaaray war gowsa bahle afaarahooda ka bax eed waa geli doontaa oday kuu gurmadana waa rabtaa war maysina gabar la yiraahdo ka macducaale oo qurbaha ka timiday ayaa meydkeedu lagu dhaxarka gurigooda ilaa hadda cid shay iyo waxay sababsataba lama ogo ciidanka booliskuna baarisa socotay dhaheen waa daba joognaa ma dhaheen aryaadaha gabartu Norway ka soo jeeda dawladda Norwayna waxay tiri dawladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay faahfaahin naga soo siiso geerida kama war Cabdullaw heer Norwayna waxa ka gala gabar Soomaaliyeed dhimatay war ma haysaane madaxweyne Xasan Sheekh iyo Dani waa heshiiyeen baa la yiri goormay direen awal aga hortinimo iyo ergada ayaa galay waradii ra'iisul wasaare lagu heestay maxad rabtaa ra'iisul wasaaruhu meeshuu shirka uga qayb galay waa Tunis khudbaduna ka jeediyay shirkaas kulay sidaan deegaa faribigeedan qoraday ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri Soomaaliya amniga istiqraar ay u baahan tahay gacalna waxa noo cidii nagu garab siisa wardad waalan baatiyeen shirki maamul goboleedyada Muqdisho ka furmaya maalin dhow baa la yiri wargabaaso wadu hadaad fayowdahay hadda dhow heer garow waa joogtay gormad Muqdisho timid warorta shirka maamul goboleedyada si Soomaaliya heshiis dunida heshiis la loo helo madaxweyne Muuse Bixi ma ka soo qayb gali doona waradar Soomaaliland waa dal madax balnaane maamul goboleedyadiina iyo qaskiinana kama mid aha war ma la aqoonsaday fadahayan war madayow taasnama kala qabato wararta Xasan iyo Dani maxay ku heshiiyeen war hawlwalna adugu war heshiiska odayaasha qodob ma ka soo bixin aryaadaha samigay Cabdullana waxa uu yiri heshiis yaa loo geelayaa hoos horumar lagu gaarima heshiis yaa loo geelayaa hoos horumar lagu gaarima war heshiisyadii Itoobiya la gali walba ma ka fulna oo baddi miyay wali rabaan war 6 dakadood muhiim waay walaal lagu bahayska ordinoone ra'iisul wasaaraha ka war dhawra dhalinyaro Soomaaliya oo ku xiran dalka Nature waxay dhaheen dawladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa inay noo gurmato xaqdaraan ku xirannahay cidna difaacaysaana ma jirto safiirka Soomaaliya uu jooga Jamaal Barrowna cabashadeena u sheegnay $8,000 waa siinay inuu nafurdaamiyana ka sugeynay uu naga aamuso telefoonku naga qaban waayay warnamiyo Soomaali meeliyasada musuq maasuq ma keeraas maaha war ma safiirka ma gafan naqday war safiirka Jamaal Barrow oo la wareystay wuxuu yiri lacagta inaan ka qaaday way jirtaa hotel iyo diyaarad raac bayna ku dhamaatay ayaga dartood baan inta u maray oo u adeegayay marka hay sugeen fardaamintoodan ku maqnaay sababtoo ah dambiga lagu haysto uu culus yahay war safiirku wuxuu yiri foojaray samay jireen dhalinyaradu marka waxa lacagta u qaatay soo wax u qaban karin see lagu ogaanaa in wax la qaban karin haddaan lacag la qaadan oo la shaqeyn